habeen wanaagsan saaxiibayaal dhantiin meel kasta aad dunida ka joogtaan fadlan hadday tahay daawashada kugu wareysa channelka subscribe inoo saar si wax walba aan soo gelino ugu noqoto daawadaha ugu horeeya caawa barnaamijkan waxa ugu hadli doonaa barnaamij oo maalmahan dambo aad ii soo weydiineyseen idinkana ballan qaaday in aan isigoo faahfaahsan idin soo geli doono page-keena barnaamijkaasna waa barnaamijka handicap oo run ahaantii ah barnaamij aad loogu isticmaalo markii la saadaalinayo shaxyaasha 1xbet-ka waxaanan ku saadaali doonaa labadan kooxood oo ah Italy iyo England. haddaba kusoo dhawaada sida ujeedaan meeshan waxaa ku qoran handicap marka aan imaano Italy iyo waxaa wada ciyaaraya caawa England marka number 1 waxaa ujeedaa number 1 ilaa intana number 1 waxaa ku jira number 2 imo number 2 braagada la furay Mainisa ka horeeyo 1.5 si fiican ay fahantaan ayaan rabaa number 1 imo oo ah Italy number 1 saa ujeedaa qoysa la furay minus 1.5 waxaa loola jeedaa Mainiskaas hadduu ku jiro aragto horta 1.5 waxay u dhigantaa 2 gool 1.5 waxay u dhigantaa 2 gool oo la macno ah kooxdan Italy waxay ku badinaysaa waxayna ku badinaysaa 2 gool iyo eber tusaale haddii marka Italy adaa u dirsanayo goolasha markaan adaa u dirsanayo adaa dhahayo Italy 2 gool ayay ku badinaysaa iyo eber tusaale waxaan ula jeedaa haddii ay ku dhamaato 2 iyo 1 haddii ay ku dhamaato loo saatay oo Italy 2 ku badiso England ay dhaliso gool loo saatay haddii 3 iyo 1 ay ku dhamaatana loo saatay laakiin haddii ay ku dhamaato 4 iyo 2 wunaata macnaha miyaanis waxa waa Italy way badinaysaa 2 iyo eber ku badinaysaa haddii Italy marka 2 iyo eber oo England ah ay meeshaas 2 iyo eber ku dhamaato wunaata in aad loo fahmo rajaynaa marka labada dhinacna waa iskaga mid hadaa ku aragto maadaama qaybtan kale taas kuma jirto laakiin halkan dhinac ayaa ka qaadan kartaa shaxda hadaad aragto minus kooxda koobaad Mainiskaas uu ka horeeyo 1.5 hadaad oo bracketkaas la xiray hadaad kooxdan 2 gool ayay ku badinaysaa waa 2 wayna badinaysaa 2 iyo eber ku badinaysaa haddii adiga ay noqoto xataa 6 iyo 5 ay noqoto loo saata laakiin 6 iyo 4 haday noqoto wunaata marka inaad fahanteen waa rajaynaa waxaa ku soo xiga mid kale imo hal macnaha hal oo minus 1 oo bracket la furay minus 1 waa minus 1 oo bracket la xiray oo saarantahay 5.8 mid hore waxaa saarneed 1.5 $6 iyo 7 senti qaybtan Italy wali joognaa tan waxaa saaran qoysa la furay waa minus 1 waa la xiray 5.8 saar idan waxaa loola jeedaa kooxdan 2 gool ay dhalinaysaa wayna badinay tusaale labadan gool laakiin marka ma buuxo tusaale waxa waaye haday Italy ay macnaha tiyo kale daba socota laakiin tan xogaa way ka khafiifsan tahay Italy haday gool ay la timaado halkaas goolna ciyaarta ay ku dhamaato 1 iyo eber haday ku dhamaato adiga rufawnata hata lacagtada waa lagu celinaa laakiin muhiimadu waxa waa 2 gool iyo eber haday ku dhamaato waxa oo kala kitan chance fursad waxa kaga furan 1 gool haday lacala tusaale ay noqoto halkaas gool ay kugu badiso oo tusaale 1-2 ama haday ku bas 1 iyo eber haday ku badiso adi rafowna helaysaa laakiin 2 iyo eber haday ku dhamaato ayadana waxa way wun oo banaanka yaalaata marka tan minus 1 hadaa rato 2 gool waa laakiin 1 gool hadaa dhalisatana rafowna oo loo sameeyay waay midaasna in la fahmo waa rajaynaa tan saddexaad waxa waaye waxaad leedahay tan marka tan saddexaad waxa u jeedaan qaybta Italy la wali joognaa
bracket la furo eber idana bracket ku jiro ebertaas bracket ku jiro oo saaranta $2 iyo 27 senti iyo macnaha waxa saar $2 iyo 27 senti tan $2 27 senti saaranta iyada waxa laga wadaa kooxdan eberta u jeedaan macnaha horta eberkaas gool u dhigmaa kooxdan Italy hal hadii lacala meeshan ay ku dhamaato eber hadii ku dhamaato eber hadii ku dhamaato reform waa hal eber hadii ku dhamaato wuunata ma fahamteen eber tii hor meen sadaarto kooxda adaa u tirsanay goolashaas ay dhalinaysa intaas ku badinaysa ahayd laakiin ebertan oo qoys ku jirto maxaa waa hal gool ay u dhigantaa laakiin hadii eber ku dhamaato ciyaartaas oo tusaale Italy iyo Ingiriiska dad eber ay ku dhamaato waxa tahay reform laakiin hal eber haduu Italy uu ku badiyo waxa tahay won waxaan ka hadlayaa waa tan eberta qoysku ku jirto ee oo diskeedana yahay $2 iyo 27 senti intaas in la fahmo rajayna soo soco tan kale waxa waay tan iyadana waxa u jeeda qoysa la furay midi hore Mainz leeyahay marka Mainz leedahay waxaan ku dhahay kooxda adaa u dirsanay goolasha intaas ku badan tan laakiin waxa waay ma looga badinayo sheekada markaan hal bracket la fur hal qoysa la geeyo waxaana saarna 1.25 senti macnaha waxa waay Italy laba gool ma looga badinayo Italy laba gool ma looga badinayo tusaale Italy hadii hal gool laga dhaliyo oo hal eber ay ku dhamaato ciyaarta reform waay laakiin Italy hadii laba looga badiyo laba eber looga badiyo markaas aad loos tahay loos tahay tusaale tan waxay ku fiican tahay marka Janis waay hal eber hadii looga badiyo reform ay helaysaa ee ku dhamaato Italy hal Italy Ingiriiska hal uu dhaliyo Italy eber ee noqoto hal eber ay ku dhamaato Ingiriiska hal uu ku badsho adii marka waxa tahay reform laakiin laba haday meeshas gaarto loos tahay soo soco tan kale marka waxa waaye hal sida u jeedaan hal -5 meesha data ay ka hal -1.5 ee ka ahayd aad goolasha u dirsanaysa tan waxa waaye waa 1-5 1-5 ka iyo maxaa laga wadaa kooxdan Italy laba gool oo buuxo ma looga badinayo waa tiyaadati inay ku wartaan ma rabo tiyaadati Mainz ku jirto waxaad ay kooxdaas ku badinaysa tan laakiin waxa waaye laba gool ma looga badinayo waa Italy laba gool ma looga badinayo Italy laba gool ma looga warkaas inuu waa cadiya tusaale haday labo eber ay ku dhamaato oo Ingiriis laba u dhaliyo Italy caawa ay laba eber meeshas ku noqoto waa tan saaran 1.15 senti ka hadla 1.5 ka oo qaybta Italy marka hadii laba eber ku dhamaado Ingiriiska laba u dhaliyo Italy ay eber noqoto loo saatay laakiin hadii Italy laga badiyo oo ku dhamaado 1-2 ay ku badiso Ingiriis laba uu ku badiyo Italy hal u dhashto wuuna taadi marka intaas in la fahmo rajayna tan soo soco waxa imaada waxaad u jeedaa hadana bracket la furay labo ku jirto waa la xiray bracket waxaan saaran $1 iyo 2 senti tan macnaheedu waxa waaye Italy 3 gool ma looga badinayo 3 gool ma looga badinayo tusaale Italy marka hadii 2 gool laga dhaliyo oo Ingiriiska laba u dhalsho adii hadan reform tahay laakiin 3 gool maalintii laga dhalsho loo saatay warkaas macadiya waxaan ku dhahay tan laba macnaha qoysa la furay laba la gelisay bracket waa la xiray oo diskeeda waxa waaye 1.2 senti Italy 3 gool ma looga badinayo tusaale hadii 2 gool laga dhalsho ciyaartan ku dhamaatay Ingiriis oo laba Italy waxba adii reform la lacagta lagu celina loo sumtid laakiin maanta 3 gool iyo eber ay ku dhamaatay ciyaartan adiga loo saatay haday ku dhamaato hal oo Italy u dhashay Ingiriisna laba u dhaliyo
adi rufona tahay laakiin maalinta ciyaartan ku dhamaata hal iyo afar ay ku dhamaato loos tahay waxa ugu dambeeyo tan waa 2.5 waxa waa 3 gool oo toos ah waa 3 gool oo toos ah Ingiriiska Italy 3 gool ma looga badinayo waa Ingiriiska 3 gool ma looga badinayo haddii 3 gool oo toos laga dhaliyo adi ilaahay ku arusho waayo loos aata waa u jeedaa waxa ku 2.5 waxa loola jeedaa watan ugu dambeys waxaan ka hadlaa ee saaran tahay $1.8 umida saaranta shayga ugu dambeeyso qaybtan Italy macnaha ugu dambeys waa 2.5 waxa laga wadaa Ingiriiska ee Italy 3 gool ma looga badinayo marka warkaas inuu cad yahay rajaynaa qaybta kala imaanayna haddana qaybtan kale sida u jeedaan oo qaybta Ingiriiska xigtaan ka hadloona markaan yaa tan hadaayad waxay ahayd qaybta shaxdan qaybtan waxay ahayd Italy ugu hadleynay qaybtan waxa uu hadleynaa qaybta Ingiriiska marka mid hore waxay ahayd 1 midana waxa waa 2 1 waxa waa shaxdan qaybtana iska leh Italy 2 na waxa iska leh Ingiriis marka 2 mana subrakada la furay midan 2daas iyo 1ka yaa lagu wareeyay waa lambarada oo kaliya oo iiga kaleeyay intan 1 ajir intan 2 ajir laga wadaa laakiin muhiimada bracket waa bracket la furay 1.5 waxa waaye waxa saaran $1.78 saaran iyadana 10 senti ma dhamo marka waxa waaye Ingiriiska 2 gool ma looga badinayo waxa Ingiriiska 2 gool ma looga badinayo tusaale Italy haduu 2 gool ee dhaliso Ingiriiskana 1 gool u dhaliso adiguna tahay cabsi dhama jirto una tahay laakiin maanta 2-0 lagu garaaco Ingiriiska loos tahay haddana waxa imaada lambar isla istiyaan ku jirnay qoysa la furay hal ku jirto qoyska waa la xiray ayadana waxa laga wadaa waxaana saaran odiskeedin wuxuu yahay $1.12 senti iyadoo waxa laga wadaa isla saano kale laakiin wax yar way kala qafiisan yihiin tii hore waxay ahayd Ingiriiska 2 gool oo toos ma looga badinayo tan laakiin waxa waa Ingiriiska 2 gool ma looga badinayo laakiin Ingiriiska hadii 1 gool looga badiyo adi rafona tahay Ingiriiska hadii 1 gool looga badiyo oo 1-0 ay ku dhamaato rafona tahay lacagtaada waa leedahay oo lagu celinaa laakiin Ingiriiska maanta lama laga dhaliyo loos aata okay intaas waa isla fahanay haddana imow mid saddexaad qaybta saddexaad oo ah bracket la fur ever ku jirto bracketka la xiriir waxa odiskan waxa waaye 1.73 senti waxa laga wadaa Ingiriiska 1-0 ma looga badinayo tusaale ever haday ku dhamaato ciyaartan rafona aata laakiin maalinta Ingiriiska 1-0 looga badiyo loos aata haddana loos aata laakiin ever haday ku dhamaato ciyaartan rafona leedahay evertas gool ay u dhigantaa la socdo Italy haduu gool ever uu hal Italy gool ay dhaliso Ingiriiskan uu ever noqdo waxa waaye loos aata laakiin ever haday ku dhamaato ciyaartan rafona waa hadaa Ingiriiska badisano qeyr waa iyadoo sida la rawaay tan saddexaad imow marka afaraad aan iraahday waa taadadku ka soo hadlayno kale minus qoysa la furay -1 qoyska waa la xiray oo qaybta Ingiriiska joognaa markaan 3.78 senti saaran waxa waaye Ingiriiska wuxuu ku badinaa 2 gool 2-0 tusaale Ingiriiska 1-0 haduu kaga badiyo rafona leedahay 1-0 haduu kaga badiyo rafona leedahay tusaale dhimashan ku dhamaato 2-1 haday ku badiso rafona Ingiriiska 2 gool macnaha waxa waa Ingiriiska 2 gool ku badinaa waa mugtaa Ingiriiska hadii Italy 1 gool keensada Ingiriiska 2 gool dhaliso rafona laakiin Italy hadii 2 gool ay dhalsato oo toos u dhaliso taas waxa waa 1 ileen adiga waa u dirsato ku sheegay mugta maniska maxaa way adaa goolish u dirsanooyo adiga goolisha u dirsanaay intaas ay ku badinay adoosa marka waxa waa 1-0 haduu Ingiriiska 1 gool u dhalsado
Italy wax dhali waayaan reform waa laba iyo eber ku dhamaatana won waa soo soco marka qaybta kale ma hoos minus 1.5 idane qaybta hore da soo faad qaybtan waa macna waa fahmaysa isku mid waaye waxa waa idane ingiriiska laba gool oo toos ku badinaa hadaad waa taadheena Italy laba ku badinay tan tiyo kala leeyahay hada taas soo fahmi midana ka fahan macna waxa ugu talagalay labada meel waxa uu sharxaaya qaybta hore da ku soo fahmi qaybtan dambe ku fahanto minus 1.5 waxa waa ingiriiska laba gool oo toos ku badinaa haddii meeshan ay ku dhamaato 2-1 oo Italy gool ay dhalisay ingiriiska laba u dhalay loos waa shaxdaas laakiin ingiriiska laakiin haddii meeshan ku dhamaato 1-3 ingiriisku 3 gool u dhalay Italy 1 ay dhaliso wunaata Italy doo laba dhaliyo ingiriiska 4 ay dhalisana wunaata macnaha markasta laba macnaha waxa meeshan hal rabo ingiriiska inuu badiyo laba gool iyo wax ka badan uu ku badiyo muhiimad intaas waa tan imaw haddana minus qoysa la for minus 2 qoyska waa la xiray 9.3 xasaay ingiriiska caawa 3 gool uu kaga badinaa Italy tusaale marka ingiriiska haduu laba gool uu dhaliyo adiga oo 2 eber ay ku dhamaato reform walaak maanta ingiriiska 3 gool uu dhaliyo markaas adiga aad maxaan ku yiraahdaa aad guuleystos u guuleysanaysaa 3 laga rabo meesha minus labadaas waxa waaye qabyo waaye macnaha waxa laga wadaa fursad waaye tan ugu dambayso imaw marka tan ugu dambayso imaw qoysa la furo minus 2.5 ingiriiska waxa waaye 3 gool oo toos ugu badinaa 3 gool oo toos tusaale ciyaartan caawada ay ku dhamaato 1-4 oo tusaale Italy 1 ay dhaliso ingiriisna uu 4 gool oo caawa dhaliyo $9.9 aad helaysaa wada $1 dhigatid mana saas laga wadaa oo cad macnaha laab dhama jirto toos u helaysaa laakiin haddii ciyaartan ku dhamaato 3-1 loss waa meeshan hadaa aragto qoysa la furay minus 2.5 3 gool ku badinaa marka guud ahaan barnaamijkeeni handicapka intaan ayuu ku egyahay hadaad fahamteen commentiga ugu la wadaaga hadaad fahminna waa ii soo sheegi kartaan aad baa u mahadsantiin saaxiibayaal